kelmadaha macno la'aanta ah ee qiimo dhacu ku dhacay waxa kamid ah kelmadda isbedel doon xisbiga wadani oo u muuqda inuu yahay xisbi daadxoora. waxaanu halkan ka faraynaa la socodsiinaynaa barasaabka gobolka Togdheer iyo hay'adaha ammaanka in nimankaasi haddii mar dambe ay xisbiga kulmiye soo hadal qaadaan oo carabka kaga dhaco inay tallaabo waafiye ka qaadaan xisbiga wadani oo u muuqda inuu yahay xisbi daarun nadwa ah. bismillaahi raxmaani raxiim wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam. ilaahay baa mahad leh subxaanahu watacaala. waxaan kelmad yaroo kooban ka odhan doonaa niman goordhaweyd ka hadlayay magaalada Burco oo sheegtay inay yihiin garabka isbedel doonka ee xisbiga kulmiye. kelmadaha macno la'aanta ah ee qiimo dhacu ku dhacay waxa kamid ah kelmadda isbedel doon oo baryahan dambe bulshada ay jahawareer ka taagan tahay oo dhagahoodii ka badatay oo ay garan laayeen cidda ay ku sifeeyeen isbedel doon. marka nimanka halkaa ka hadlayay runtii haddii magacyadooda aan idiin sheego waxaa ka mid ahaa agaasimihii guud ee wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah oo baaqana inoo akhriyey. waxaa ka mid ahaa wasiir ku-xigeenkii wasaaradda horumarinta biyaha oo bil joogay xilka. waxaa ka mid ahaa laba wasiir oo soo maray wasaaradda maalgashiga. waxaa ka mid ahaa wasiirkii wasaaradda macdanta iyo tabarta ee hore oo ninka keliya ee dee maaragta fulinta xisbiga ama guddiga fulinta xisbiga kulmiye ku jiray. intooda kale waxay ahaayeen nimanaan xisbiga shaqo ku lahayn oo aan ka tirsanayn bay ahaayeen. waa nimankaa markay xaslan waayeen dee ay hanan waayeen xilalkii ay qaranka u hayeen laga eriyey xilalkii iyaguna door mooday inay markaa iskugu tagaan xisbiga wadani oo u muuqda inuu yahay xisbi daadxoora oo u muuqda inuu yahay xisbi daarun nadwa ah. xisbigaasi waa meel loogu tashado qaranka dibindaabyadiisa iyo hagardaamada qaranka. waa meel ay iskugu tegeen cid kasta oo la dagaalamaysa oo shirqoolaysa qarannimada. waa meel ay iskugu tegeen cid kasta oo kasoo horjeeda horumarka ka taabagalay dalkeenna. marka waxaanu la socodsiinaynaa marka laga reebo ninkaa guddiga fulinta ku jiray intooda kale inaanay ahayn niman shaqo kule xisbiga. nimankaa xilkii ay xaslan waaye ee deetana xilkii ka tegay inay ahaayeen. inaad xisbiga ka mid noqotaana dee sida xeerka xisbigu qabo waa inaad xisbiga ku xidhnaato, waa inaad shirarkii soo xaadirto, waa inaad tabarucaadka xisbiga bixiso, qof tirsan inaad noqoto weeye. marka annagu nimankaa waxaan u aqoonsanahay inay yihiin niman ku fashilmay xilalkii ay xukuumadda ka hayeen deetana sidaa xilalkii lagaga eriyey shaqadoodii iyo dee cid ka tirsan xukuumaddii hore ee uu garwadaanka ka ah axmed maxamed siilaayo iyo dee in ay liiska ku buuxsadeen oo ka tirsan xisbiga daadxoorta ah ee wadani. marka nimankaas saasay ahaayeen. waxaan u sheegaynaa markaa nimankaas beenaha ay meesha kasoo jeedinayeen waxaa ka mid ahayd inay xisbiga ku eedeeyeen inaan tala maroorsi jiro oon talada la wadaagin. waa beeninaynaa taa. xisbigan waa xisbi muddo dheer jiray. waa xisbiyada ugu maaragtay taariikhda weyn leh ee ugu fiican weyn leh oo dhowr iyo 20 sanadood jiray. waa xisbi talada la wadaago oo haddii ilaahay ka dhigo hadday noqoto musharaxiinta xisbiga iyo hadday noqoto hoggaanka xisbiga iyo hadday noqoto fulinta iyo golaha dhexe intaba tala wadaag baa jirta. de waana xisbiga ay hogaaminayaan rugcadaagii iyo nimankii maxaan ku dhahay halyeeyada ahaa ee wax badan dalka iyo dadka gashaday. taladuna way dhex taallaa. arrin kasta oo soo darisana dee waxa weye waa laga tashadaa waana la jilciyaa markaasaana haddii ilahay ka dhigo go-aama laga qaata. marka haddii cidi fashilantay waxa ay xukuumadda ku eedeynaya horta cidda fashilantay waa iyaga. cidda xilalka hayay waa iyaga. ama arrimo dabadeed ha noqoto ama dee xilal kaleba ha noqoto ama amni ha noqoto inta haysay horta fashilantay waa iyaga. laakiin xukuumad fashilantay annagu ma ogin. iyagaa fashilmo markay shaqadoodii ama musuqeen ama ay maamul xumo iyo shaqo xumaan ay maxaa isku darsadeen ama ay khiyaamo ku kaceen. cidda dee laga eriyey shaqadii iyo fashilantay horta waa iyaga. laakiin xukuumaddu waa shaqaynaysaa. arrimihii dibaddu maanta maalin ay ka fiicantay ma jirto. somaliland oo adduunkii laga yaqaanaa. ictiraafkii baa kaabiga inoo soo saaran. way ku ammaanan yihiin mas-uuliyiinta iyo madaxda wasaaradda arrimaha dibadda way ku ammaanan yihiin. arrimihii guduhu meel fiican buu marayaa. haddii ilaahay ka dhigo wasaaradda arrimaha gudaha waa ku ammaanantay shaqadeedii. waddankaa nabadda aynu ku nool nahay dee bayd maayo. hay-ad kasta shaqadeedii waa ku ammaanan tahay. laakiin cidda fashilantay bilowgii horena maxaan ku dhahday qaranka shirqoolkiisa isku dayday aynu la soconay in nimanka halkaas ku urursaday daaranaad waa xisbiga wadani inay ahaayeen nimankii bilowgii hore xukuumaddii axmed maxamed maxamuud siiraayo garwadaanka ka ahaa isku dayay inay shirqoolaan ay dabada dhulka ugu dhuftaan markii
maxaan ku rahday dhowr iyo 10 wasiir intay isku casileen halka imika yaaranadwada xisbiga wadan isku tagay maantana hogaanka ka ah ee hogaaminaya waynu la soconaa nimanka halka joogay inay kamid ahaayeen nimankii in kursiga saddexaad ee dalka baarlamaanka ku fadhiyay markii la sacaanadu ka soo jeestay inay yiri waa khiyaameeyo marka horeba dee kuma mabaadi kulamaan joogin iyo maaragtay wadaacadu maan ahayn kuwanina kuwii waxba kama duwana waa nimanka walba la 40 bixiyaay markii xilalka laga qaaday 40 habeen aan de sii joogina markiiba halka galay marka horeba niman waxay ahaayeen ajandayaal hoose ku dhex watay xukuumadda iyo xisbiga waxay ahaayeen niman aan sabir lahayn oo mabdi'iyana aaminsaneyn xisbinimada waxay ahaayeen niman aan daacad u ahayn xisbiga xukuumadda sida laajigeed inay naga tagaan macno weyn noo sameyn mayso hadii la ka dhigo xukuumadda iyo xisbigeeda ay ka tagaan macno weyn u sameyn mayso inay halkay tagaana macno ku yeelan maayo qofku markuu halku joogo qiimo ku leeyahay uu yahay qof kaadiriya oo mabdi'iyan xisbigiisa aaminsan iyo xukuumaddiisa halku tagana hadhow macno ku yeelanay laakiin saynu la socono nimanka halka tagay iyo intii ka sii horeysay iyo in badan aynu hore u aragnayba halka ay tagayna macno kuma yeeshaan markiiba way ka cararaano xisbi kale galaan haddana ama urur kale haddana way ka cararaano meel kale galaan dad saa u wareegay baa jira sidii diyaaradii dagaalka oo xisbiyada dhan iskaga dab qaaday baa jira taasa waxay ku tusaysaa in aanay macno weyn maxaa ku tigistoodaasi noo sameeyeen iyagana aanay runtii wax alaala waxay soo kordhinayaan kaana ku kordhinayaan aanay jirin iyo kuwa kale tagaana marka saasaan u sheegaynaa waxaanu halkan ka faraynaa la socodsiinaynaa barasaabka gobolka Togdheer iyo hay'adaha ammaanka in nimankaasi haddii mar dambe ay xisbiga kulmiye soo hadal qaadaan oo carabka kaga dhaco inay tallaabo waafiye ka qaadaan waayo kala tirsan xisbiga aanu leenahay ninka aanu sheegno kaliya ka tirsan guddiga fulinta ku jiray inta kale waxa way kama tirsana marka intaas aanu u sheegaynaa wabillahi tawfiiq